waxaa lagu naanaysaa boqorkii gantaalada. halkiisa xabo wuxuu awood u leeyahay inuu qarayrada adduunka ka masaxo dowladda Faransa, waana gantaalka ay ku faanaan warshadaha hubka u sameeya Ruushka. waxaa lagu tiriyaa inuu yahay gantaalka u casrisan gantaalada balaastiga ee qaaradaha iskaga kala goosha uguna halista badan. sidoo kale gantaalkan aan ka hadli doono wuxuu awood u leeyahay inuu sikman gudahooda dambas kaga dhigo gobolka Texas ee Mareykanka iyo magaalooyinka ku xiran. balse su'aashu waxay tahay, maxaa dhici doona haddii qaysarka hogaamiye Ruushka uu go'aansado inuu adeegsado? saameyn intee le'eg ayuu dunida ku yeelan doonaa? sidoo kale suurtagal ma tahay inuu u adeegsado dagaalka Ukraine? xogahaas iyo kuwo kaloo xiiso leh warbixintan ayaa idinkugu soo gudbin doonaa ee nala socda ilaa dhammaadka. sidoo kale ha ka iloobin muuqaalka inaad like saartaan, siina sheer garaysaan si uu meel dheer u gaaro, annagana ay dhiirigelin noogu noqoto. mahadsanidin. gantaalkan waxaa lagu yeeraa Shaydaan 2, halka Ruushkuna ay ugu yeeraan Sarmat RS-28. ka hor inta uusan soo gelin gacanta ciidamada Ruushka, wuxuu soo maray tijaabooyin dhowr ah iyo shaybaaro kala duwan. inta badan dalalka NATO waxay ugu yeeraan magaca Shaydaan 2. Ruushku wuxuu gantaalkan ugu talagalay in uu ku bedelo gantaaladiisii hore ee qadiimka ahaa, gaar ahaan kuwii la sameeyey 70-meeyadii. Sarmat RS-28 waxaa soo saartay shirkadda Ruushka ee Makiyev, waxaana markii ugu horreysay sawirada iyo muuqaalada gantaalkan lasoo bandhigay 2 sano ka hor. gantaalkan wuxuu ku shaqeeyaa shidaalka dareeraha. dhinaca kale, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ballan qaaday in uu siin doono ciidamadiisa qalab kasta oo ay ka codsadaan si uu ugu taageero ololaha militari ee Ukraine, taas oo muujinaysa in aanay jirin wax xadidaad dhaqaale ah oo ay dowladdu siin doonto ciidamada. waxaa xusid mudan in gantaalada Sarmat RS-28 uu ka mid yahay gantaalada casriga ah ee Ruushka ee jiilka 5aad. Putin ayaa sidoo kale sheegay dhowaan in gantaalkiisa nukliyeerka ah ee aan la joojin karin uu dhowaan diyaar u noqon doono in loo adeegsado goobaha dagaalka. geesta kale, kadib markii lagu guuleystay tijaabinta gantaalkan, Putin wuxuu sheegay in gantaalkan uusan jirin gantaal la heer ah oo la tartami kara caalamka. cadowga Ruushkana uu ku qasbanaan doono inay 2 jeer kasii fikiraan ka hor inta aysan u soo hanjabin iyaga. Putin wuxuu kaloo waqtigaas ka digay in gantaalku uu ka gudbi karo dhammaan hababka casriga ah ee nidaamyada difaaca hawada, macnaha waa lama joojiye. haddaba muxuu yahay gantaalkan? gantaalka Sarmat ayaa ah kan ugu dheereeya gantaalada isaga kala goosha qaaradaha, wuxuuna awood u leeyahay in uu duqeeyo bartilmaameedyada in ka badan 11,000 oo kiiloomitir ilaa 18,000 oo kiiloomitir, taas oo la micno ah in uu si fudud u garaaci karo Yurub iyo Mareykanka. khubarada reer galbeedka ayaa sheegay in gantaalkan uu qaadi karo 10 madax oo nukliyeer ah, isla markaana uu burburin karo dhammaan dalal ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Faransiiska, sida uu qoray wargeyska The Telegraph ee ka soo baxay Ingiriiska. Shaydaan 2 wuxuu awood u leeyahay qaadista madaxyada dagaalka ee waxgumaada, wuxuuna sameeyaa qarax aad u xooggan. sidoo kale waa gantaalka ugu awoodda iyo ridada dheer adduunka, wuxuuna ka gudbi karaa dhammaan nidaamyada iyo hababka difaaca hawada ee casriga ah ee hadda jira. sifooyinkiisa: dhererkiisu waa 35.3 mitir, balaciisuna waa 3 mitir, culayskiisuna waa 208 tan. wuxuu ku shaqeeyaa shidaalka dareeraha. sidoo kale, sidaan horey usoo sheegnay, wuxuu gaari karaa masaafo dhan 11,000 ilaa 18,000 oo kiiloomitir. ku darso, halkiisa gantaal wuxuu qaadi karaa 10 madax oo nukliyeer ah. sababaha keenay inaysan ka hortegi karin nidaamyada difaaca hawada waxaa ka mid ah in uu awood u leeyahay in uu bedelo jooga, jihada iyo xawaaraha uu ku socdo. wuxuu magaalada London ku gaari karaa ilaa 3 daqiiqo gudahood. mashruuca gantaalkan wuxuu soo bilowday sanadkii 2014, waxaana howlgalladiisii horumarineed ay sii socdeen ilaa 2022, markaas oo lagu guuleystay tijaabadii ugu horreysay. kadibna wasaaradda difaaca Ruushka ayaa saxiixday qandaraas lagu sameynayo 50 gantaal oo noocan ah, kaas oo la dhigay 20 goobood oo ciidan oo kala duwan.